Faragelinta ciidan ee muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda federaalk Soomaaliya ay ku haysay deegaanada dowlad goboleedka Puntland ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxay noqonaysaa mid cirka isku sii shareerto waxaana soo baxaya warar sheegaya in tirada ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ay ka diiwaan gelisay deegaanada dowlad goboleedka Puntland ay ka sare mareen qiyaas kasta oo markaasi la filayay isla markaana ay ku sii dhow yihiin kumanaan askari oo dowladda federaalk Soomaaliya si toos ah u hoostaga isla markaana ku sugan deegaanada dowlad goboleedka Puntland waxaan kula wadaagi doonaa deegaanada iyo degmooyinkii ugu dambeeyay ee dowladda federaalk Soomaaliya ay ka diiwaan gelisay ciidamada sidoo kale wadahadaladii iyo dhexdhexaadintii laga dhahwaday Siciid Cabdullaahi Dani iyo Generaal Jimcaale oo markaasi iyaguna gebi ahaanba fashil ku soo dhamaaday laguna kala tegay waxaan kula wadaagi doonaa sababta ka dambeysa fashilka wadahadaladii u dhaxeeyay Generaal Jimcaale iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani soo dhawada wada muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo suuragal ma tahay ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ay ka diiwaan gelinayso deegaanada dowlad goboleedka Puntland inay ku afgembiso madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo xukunka kaga tuurto si la mid ah sidii madaxweynihii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen oo waqtigan isagu markaasi dibad joog ah hagaaga deegaanada dowlad goboleedka Puntland muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda federaalk Soomaaliya waxay ka waday faragelin aad u xooggan oo dhinaca ciidanka ah iyada oo deegaano iyo degmooyin badan ka diiwaan gelisay kana qoratay ciidamo aad u fara badan waayadii ugu dambeeyay dowladda federaalk Soomaaliya waxay xoogga saaraysay ciidamada hubeysan ee ciidan beeleedka ah iyo kuwa ka goosanaya maamulka Siciid Cabdullaahi Dani inay ka dhigto ciidan qaran isla markaana ay diiwaan geliso mishaarna ay u bilowdo isla markaana ay u magacawdo saraakiil iyada si toos ah u hoostaga awaamirteedana fuliya dowladda federaalk waxay ka soo bilowday ciidamada PSF iyo sidoo kale ciidanka danab kuwaas oo ahaa guutooyinkii ugu horreeyay ee dowladda federaalk Soomaaliya si rasmi ah oo daahfuran ay uga diiwaan geliso deegaanada dowlad goboleedka Puntland ulana wareegto mishaarna ay markaasi u bilowdo muddo ay ciidankaasi mishaar qaadanayeen kadib waxaa maalmihii ugu dambeeyay ee u dhaqaaqday dowladda inay xoojiso saameynteeda dhinaca ciidanka ee deegaanada dowlad goboleedka Puntland waxaana ay bilowday diiwaan gelinta iyo sidoo kale la wareegista ciidan beeleedka ku sugan deegaanada dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale inay markaasi qorato ciidamo cusub waxaa gebi ahaanba hadda ay u muuqataa inay soo dhammaatay diiwaan gelinta ciidamadii hubeysnaa waxayna u dhaqaaqday inay qorato ciidamo cusub iyada oo dhalinyarada ku sugan deegaanada dowlad goboleedka Puntland ay doonayso dowladda federaalka inay ciidamo ka dhigto ay qorato isla markaana ay tababar u dirto kadibna ay dib u soo celiso deegaanada ilaa hadda ciidanka laga diiwaan geliyay waxaa ka mid ah iyo degmooyinka magaalada Gaalkacyo Garowe Boosaaso Qardho ilaa iyo Raas Caseer iyo dowladda federaalk Soomaaliya ciidamo ka diiwaan gelisay gobolka Mudug meelaha ugu badan ee ciidanka ay ka qoratay kana diiwaan gelisay waa degmada Goldugub iyo sidoo kale degmada Gaalkacyo qaybta Puntland haddaba wararkii ugu dambeeyay guud ahaan diiwaan gelinta dowladda federaalk Soomaaliya ee dhinaca ciidanka ee deegaanada Puntland ay ka sameynayso wadahadaladii u socday Siciid Cabdullaahi Dani iyo Generaal Jimcaale Takar waxaan ka wareystay wariye Cabdijamaal oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa ciidan ee dowladda federaalk Soomaaliya ay ka wado deegaanada Puntland iyo wadahadaladii u socday Generaal Jimcaale iyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani soo dhawow Cabdijamaal waxaad nooga warbixisaa wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyay deegaanada Puntland diiwaan gelintii dowladda federaalk Soomaaliya ee dhinaca ciidanka ee deegaanadaasi ay ka waday halka ay marayaan iyo sidoo kale deegaanada ilaa hadda dowladda federaalk Soomaaliya ciidanka ugu badan ay ka diiwaan gelisay si la mid ah wadahadaladii u socday Generaal Jimcaale iyo sidoo kale madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani halkay marayaan maxaa ka soo kordhay xaaladahaasi wada hadallo ay odayaal dhaqameed iyo dad indheer garada iyo siyaasiyiin reer Puntland ay wadeen waxaana wada hadalladaasi ujeedkoodu ahaa in xal waara laga gaaro xaaladda cakiran ee xilligan weli ka taagan deegaanada maamulka Puntland kadib markii taliye Jimcaale loo magacaabay qaybta 54aad waxaa dhacay qodobo waaweyn oo deegaanka saameyn ku yeeshay waa midda koobaad ee ciidamadii Puntland ayaa isaga soo baxay intooda badan furimaha iyagoo weliba la sheegayo inay laba ujeedo ciidanku uga soo baxayaan furimaha dagaalka dhanka kale waxaa sare u kacay khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya saraakiisha reer Puntland iyo sidoo kale hoggaanka sare ee maamulka Puntland oo guud ahaan u muuqda inay saameyn dhinacyo kala duwan ay yeesheen
waxaa aad loogu mashquulay oo arrintaasi ku mashquulsanaa odayaasha dhaqanka kulamadii ay wadeenna waxaa hadda soo baxaya natiijo horudhaca oo u muuqata in uun leysla garanayo laakiin waa shuruudo aad u adag oo ay soo gudbinayaan dhinacyada iskhilaafsan ee kala hogaaminayaan saciid cabdilaahi deni iyo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo generaal jimcaale oo haljaha ka soo jeeda madaxweynaha maamulka puntland ay ku soco madaxweynaha maamulka puntland wuxuu soo jeediyey qodobo aad u culus oo ay ka mid tahay gebi ahaanba inuusan isagu aqbalayn in ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan qaybta 54aad ay joogaan gudaha magaalada garowe waxa uu shardi ka dhigay inay gebi ahaan laga raro gudaha magaalada garowe askarta ka amar qaadanaysa generaal jimcaale oo laga saaro magaalada wuxuu sidoo kale sheegay in hal saldhig lagu soo koobo oo guud ahaan deegaanada puntland maadaama shuruudo kale oo jimcaale soo gudbiyey ay jireen ay uga ekaadaan hal meel halkaas meelna weliba waxa uu geeyey cirif meel ah oo uu yidhi gobolka sanaag ayay tegayaan isaga baxaan halkan qodobka saddexaad waxay ahayd inuu weli ku adkaysanayo saraakiisha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada puntland inaysan imaan karin deegaanadan abaabulna aysan ka samay karin cid ay kulamo la geli karaanna aysan jirin xilli ay jirtay siyaasiyiin doonayay inay tagaan deegaanada maamulkaas si ay qayb uga noqdaan xaluhelidda xaaladda taagan iyo inay wada hadallada aragtidooda ay ku biiriyaan iyo sida wax loo hagaajin karo waa gartay waxaa jiray in maalmo dhexdaas qaar ka mid ah isimada dhaqanka puntland ay xiisadan soo farageliyeen si gaar ah ninka lagu magacaabo markaasi suldaan garaase uu ka hadlay xiisada puntland ka taagan suldaan garaase hadalkiisii kadib maxaa isbedelay oo hadda deegaanada puntland ka socda mawlido waxa isbedela waxay tahay waxaa sii sare kacay kulamada ay yeelanayaan odayaasha dhaqanka waxaad moodaa siyaasiyiin badan oo awal markii hore aan attention badan siinayn xaaladaha deegaanada puntland hadda inay usoo jeesteen oo si adag looga hadlayo waxaa dib ugu soo laabtay magaalada garowe senataro oo ka mid yahay senator cabdiraxmaan faroole oo hore usoo noqday madaxweynaha maamulka puntland muddooyinka ugu dambeeyana ku metelayay dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya laakiin arrinta kale jirtaa waxay tahay inkastoo lagu guuleystay hadalkii garaase kadib inaysan xabad dhicin haddana xaaladda weli jirtaa waxay tahay in ay xiisadu aad u sii sare kacayso waxaan hore kula wadaagay qodobada ay soo gudbiyeen saciid deni dhinaciisa dhinac waxaa jira qodobo ay la yimaadeen generaal jimcaale wuxuu la yimid qodobo ah habay yaraatee inaysan jirin ousan aqbalayn in ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ay isaga baxaan gudaha deegaanada maamulka puntland oo meel cirifa la geeyo keliya wuxuu odayaasha uga carab laalaadiyo ka ogolaaday inay suurtagal tahay maadaama iyagu qas kale iyo fowdo kale aysan doonayn gudaha magaalada garowe inay ka baxaan laakiin qaybta 54aad ay tahay lama taabtaan oo ciidanku halkaas ay tegayaan arrinta kale xasaasiga wuxuu sheegay in ayaga saraakiisha u socota iyo mas-uuliyiinta u socota ee ka imaanaya dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya loo ogolaado xilli kasta oo ay doonayaan inay deegaanadan yimaadaan inay imaadaan oo aan carqalad iyo dhibaato lagu samaynin qodobka saddexaadna wuxuu sheegay oo generaal jimcaale ku adkaystay in loo ogolaado inuu saldhigyo waaweyn oo dowladdu ay dhisayso oo maalgelin loo hayo oo dalal dibadda ay dhisayaan sida uu sheegay degdegna loo dhisayo oo qaybta 54aada iyo sektarre ciidamadu ay degaan laga hirgeliyo magaalooyinka waaweyn sida boosaaso qardho magaalooyin kale oo dhowra oo ka mid tahay gaalkacyo garowe xarunteeda si heer saraa loo dhiso halkaas iyuu taagan yahay midda kale wuxuu odayaasha u ballan qaaday in asagu inta dhex qaato mikrofoonka ama dhex istaaga askarta puntland inuusan ku oranayn kaalaya imaada 54aad laakiin askari kasta ee doorto inuu isagu ku biiro 54aad aysan jirin cid ay kaga cabsanayaan ama cid arrintaas isurtaag ku samaysa inay qasab tahay oo daruuri tahay oo arrintaas aan isurtaag lagu samayn ayuu odayaasha hordhigay marka waxaad moodaa shuruudahoodu inay yihiin kuwa aad u adag odayaashu ay daaleen laakiin weli waxaa lagu howlayahay xaluhelidda xaaladda taagan waa gartay waxaad ka dhawaajisay in madaxweyne Siciid uu dalbaday generaal Jimcaale inuu ka guuro magaalada Garowe isla markaana meelo gaar ah uu isaga u cayimay
maxay tahay sababta Siciid Dani uu u dalbanayo in Jimcaale uu ka guuro ereyada Garowe isla markaana uu meel gaara ugu cayimay ma waxaa jirta cabsi uu ka qabo in General Jimcaale uu afgambigii Siciid Dani loo qorsheynayo uu qayb ka qaato sidaad og tahay ciidamada dowladdu aad bay isu soo tarayaan midkoodna kuma hadlaya saraakiisha hadlaya hadal u muuqdo uturidda ama ka gambashada ay ka gambanayaan madaxweynaha maamulka Puntland waxay u muuqdaan dhammaantood ereyada isticmaalayaan inay tahay kuwo ay colaad iyo fogaansho fog ay laga dhadhansan karo marka madaxweynuhu wuxuu ka baqayaa hadallada ka soo yeeraya saraakiisha markuu miiska saaray markuu og yahay isaga iyo khilaafka ka dhexeeya General Jimcaale markuu la socdo xaaladda ka dhaxaysa isaga iyo hoggaanka sare ee dalka inay saacad kasta iyo xilli kasta ay dhici karto xaalad jihada ka dhumi karta maamulka Puntland wuxuu cabsi weyn ka qabaa haddii uu Xasan Sheikh doorashada soo socota ay u suurto gasho inuu ku guuleysto ama ay arrintaas ay suurtagal noqoto inuu dib dalka ugu soo laabto inay ku dhacdo arrintii ku dhacday lafta gareen iyo qoorqoor oo ciidamo xoogan ay meeshaas tilaabo ka qaadaan aakhirkana hadduu Dani mar kale isku dayo inuu isu soo taago Puntland oo federaalka looga soo adkaado mar kale in isurtaag lagu sameeyo ayuu ka cabsanaya midda kale Xasan Sheikh kaliya maaha siyaasi kasta ee ka dambeeya Xasan Sheikh awood uma yeelan doono in ciidamada dowladda ee lagu abaabulayo deegaanada Puntland oo baabi'iyo hadduu baabiyana waxay noqon doontaa dhaawac weyn oo siyaasadeed oo qofkaas mas'uulka ah ee dalka madaxweynaha ka soo gaaraya sidaas daraadeed qof kasta xil qabata waxay abaabuli doontaa siina adkeyn doontaa ciidamada Puntland marka wuxuu ka baqayaa mustaqbalka cabsi ah in doorashooyinkiisa iyo ujeedooyinkiisa la hor istaago mid kale wuxuu ka cabsanayaa maantaba inay suurtagal noqoto in la yiraahdo ilaa soo ku soo baxay Puntland dowladda lafteeda dhaliil ayaa uga jirtay marka waxaad moodaa inuu odagu dhinacyo badan oo wax ka eegayo oo doonayo inuu xaaladda oo isagu kontrolo inuu kontrolo inay u diidan tahay fila Soomaaliya waa gartay haddii Siciid Dani uu dalbanayo in Jimcaale uu meesha ka guuro cabsida aad sheegtayna uu ka qabo joogitaanka Jimcaale ereyada Garowe iyo meelaha hadda saldhigga uu ku leeyahay Jimcaale maxay tahay isaga sababta ugu weyn ee uu doonayo in Garowe uu sii joogo ciidankiisa halka ay joogaan meelo kale oo magaalooyin kale oo Gaalkacyo iyo Boosaaso ay ka mid yihiin uu saldhigyo ka samaysto maxay tahay sababta Jimcaale ku kalifayso in halkaasi uu joogo haddii ciidankiisa aysan qayb ka qaadanaynin sugidda amniga guud ee magaalada oo ciidan booliis gaar ah ay Puntland leedahay oo amniga sugayo oo kuwiisa aan loo ogolayn arrinta taagana waxay tahay Mawlidow magaalada Boosaaso waxaa ku shaqo tagay dowladda qayb uga noqday saad og tahay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sariyo Guuto Asad Cabdilaahi Diyaano ciidanka BSF ayaa u suurtageliyay safarka uu ku tagay magaalada Muqdisho inuu isagu Boosaaso oo la shir tagay Boosaasiya kiiskeeda halkaasi uu ku xirmay wuxuuna u baahan yahay si uu u muuqdo mas'uul banaanka yaala go'aanadiisana saameyntiisa laga dareemayo filla Soomaaliya waa inuu aad ugu dhagaa magaalada Garowe haddii uu Garowe ka tago wuxuu tagi doonaa magaalada Boosaaso marka laba caqabad ayaa ka jirta ciidanka ogtiya BNBF oo aad u xoogan iyo ciidankii BSF ayaa jooga midkoodna ma ogola inuu General Jimcaale meeshaas ku xoogaysto marka xaalad adag ayaa halkaa ka wajihi doonta mid kale saad ogtahay hadda isaga saldhig waxa uu ahayd Garowe deegaanada hoostaga hadduu ka baxo saldhigiisana waa arrin suurto geli karta mar walba in tilaabo military laga qaadi karo Siciid Dani naftirkiisa wuxuu door bidayaa wuxuu isleeyahay caasimadda haddii lagugu qabsado oo caasimadii lagala talinayo go'aanadaadu ma ahan weli kuwa saameyn leh laakiin inta aad caasimadda adigu haysato maamulkiina hogaamiye ka tahay ninkii kula dagaalamayay iyo qoladii ka soo horjeedan aad banaanka u bixiday waxa suurtagal u noqon kara laba mid waa midda koobaad horta wuxuu iska fogeynayaa shartooda oo banaankaas ay la tigi doonaan oo halkaas ayuu kaga gaashaaman doonaa waa midda labaad marka uu go'aansado inuu weerarana wuxuu awood u leeyahay inuu weerar ku qaado oo go'doomiyo kadibna oo halkaas uga itaal roonaado laakiin inta hadda Garowe la iskula jira xabadii bilaabata madfaca uu ridaahay Siciid Dani oo ku rido qaybta 54 bedelkiisa waxa lagu dhifanayaa madaxtooyada marka kuma dhex dagaalami karo Siciid Dani gudaha magaalada Garowe laakiin wuxuu rabaa banaanka meel ah inay isugu baxaan isaga iyo ciidamada General Jimcaale lana ogaado ninka
awood u leh deegaanka inuu joogo. Marka waxaad moodaa dhagar fog oo ay labada dhinacba damacsan yihiin inay halkani taallo oo hadda aysan jirin eegis si gaara loo eegayo danaha Puntland iyo horumarkeeda. waa gartay ugu dambeyn wadahadaladii socday xogo waxaa jira sheegaya in qodobo qaar heshiis laga gaaray laakiin cid weli damaanad qaada la baadi goobayo oo aysan jirin cid labada dhinac heshiiska ama qodobadii ay ku heshiiyeen in dhinaca kale uu fulinayo damaanad qaad saxa bixin karta. Marka halkay marayaan wadahadaladaasi maxaa loo waayay cid labada dhinac wixii ay ku heshiiyeen inay fulaan damaanad qaada? arrinta taagana waxay tahay Mawlidow oo xusid mudan guddiyada arrintani loo saaray oo odayaasha dhaqanka ah waxa ay aragtidooda ay ku ilaa 13 xubnood ayaa loo saaray. 13 xubnood waxay dhiibanayaan aragti ah war sidee Puntland loo badbaadi karaa. Laakiin ogsoonow iyagu marna ma lahan go'aanka kama dambaysta. Go'aanka kama dambaysta wuxuu ka go'aa inay wax aqbalaan ama ay diidaan. Waa labada garab ay kala hogaaminayaan Saciid Cabdilaahi Dani iyo sidoo kale General Jimcaale. Marka dadkani waanwaanta isku dayaya ayaa waxay isku dayayaan bal sidii ay suurtagal u noqon lahayd inay aragti geeyaan positive oo arrinta wax looga qaban karo. Laakiin mar walba waxaa suurtagal ah waa dad jawaab sugayo ah inay labada dhinac ay aqbalaan. Haddii marka ay jawaabtii ay ka filayeen oo wanaagsaneed ka waayaanna way soo laabanayaan mar kale. Marka arrintu waxay u baahan tahay dad go'aanada gaari kara soona gudbi kara inay gacanta u gasho. وهجاج كاس وحوها الجمال وإن كور السنة حالته وجود بيجي فرقلين تعيدنا دولة الفدرال الصومالية كود الدجاجة ده بوتلان يقود أهم بدر دقائق وجود بيجي الدجاجة ده سي دولة الفدرال الصومالية كود وحي كسو قرة توينا ده الدنباية كودا وندون تايل ما من المقال كلا يجرسو وسيشر جرسا على كذا ده نقيب تفلا ده كوديبو دولة الفدرال الصومالية قرشة ده بوتلان ما كقول يسون دون تام سوا وكفر شيل ميدونا